Afar qof ayaa dhintay halka 8 kalena uu dhaawac ka soo gaaray kadib markii gaari nooca rakaabka leh ee loo yaqaano matatuda uu shil ku galay wadada isku xirta Nakuru iyo Eldoret ee dalkan Kenya. Matatuda ayaa waxay ka soo baxday Eldoret waxayna ku soo jeeday magaalada Nakuru. Kadib gaari kuwa xamuulka qaada oo wadada dhinaceeda yaala ayay isku dhaceen. Darawalkii matatuda ayaa sida la sheegay waxa uu xakameyn waayay gaariga taasi oo sababtay inuu ka dhaco gaariga kale. Madaxa booliiska ee tuulada Rongai Joseph Kiako ayaa u xaqiijiyay warbaahinta dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 8 kale. Wadihii matatuda ayaa ka baxsaday goobta kadib markii uu shilka dhacay. Dadka dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday isbitaal ku yaala Nakuru si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Ilaa iyo bishii koowaad ee sanadkan waxaa shilal siyaabo kala duwan ugu dhacay isla wadadan halkaasi ay ku dhinteen in ka badan 100 qof sidoo kalena la sheego inay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Darawaliinta gawaarida kaxaysa ayaa inta badan la sheegaa inaysan taxadar muujinin xilliyada ay ku jiraan safarada dhulka.